halkan maxaa ka hadlaysa Giuseppe habartiis waxa waa gabadhaan habartan waxay dhashay wiilkan gabadhaan sodohay u noqon doontaa oo hadda isguursanayaan wiilka waxaa la dhahaa Giuseppe gabadhan waxaa la dhahaa Titi marka waxay rabtaa inay labadoodaba la hadasho sida ay ka taagan yihiin sodohda aan idin tusaynaa reer galbeedkana marka waxay tiri maxay ahayd wiil xanuunsan ay u duceynaysa hadday bilaabaysaa marka inay iyaga la hadasho way naxsantahay cunugaas wiilka jiran ay u duceynaysa daraadiisa Giuseppe iyo Titi aan la hadlayaa hay tiri aadan labadiinaba idin jeclahay maya waxay tiri gabadha Giuseppe kaligiis dartiis kuguma jeclaanin sidaadaan kuu jeclahay labadiinana waxaan rabaa inaan idin wada duceeyo idinlana hadlo Titi waxaan rabaa inaan ku mahad celiyo waxaa kasoo mid noqotay familkeena markasta oon dhib ku jirno iyo markasta oon dheef ku jirno ood nagu dhex jirtid dhib kasta iyo dheef kasta ood nala qaybsanaysid aan kugu jeclaaday waan kaaga mahad celinayaa waxaanan ogahay oon hubaa inay noloshiina noqon doonto ma dhahay farxad kaliya laakiin waxaan dhihi doonaa inaan nolol deganaansho ku noolaa doontiin wax kasta oo idinka u baahantiin inaa heshiin idin rajeynaa inaa heshiin wax kastoo jeceshiin oo is aamintiin Giuseppe baan la hadlaya tiri wiilkeeda waaye waxaan rabaa inaan waxa ku dhaho waa qososha ani adiga shakal aan waa is jeclahay tiri laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego inta badan tiri dabeecadaheena ani adiga waxaan leenahay hal dabeecad isku mid oo adag waa isdirirnaa tiri ma aanay tiri dagaal laakiin wax istubidaajina isku qabanaa eegaagu ana iga dhigtay responsible oo waxba aadan u qabsanaynin gurigana aad ii keentay waxyaabo badan isku qabsanaa tiri labadeenana waxaa dhib kasii jiray tiri waa isla weynahay tiri labadeena waa isla weynahay midna midka kale ma dhahay anaa kaa qaldan haddaan kii qaldan qaladkiisa waa isla saxsan yahay le marka waxay tiri taas dhib waa ku qabnay hadda ugu dambaysta adiga hadda waxaa idhahdaa hay tiri markasta waxay dhahdaa hay waa dhamaatay alxamdulilah aniga waa guursana waana kaa tagaa haddaa farxi doontaa aniga ma farxayo waa murugoonayaa xataa haddaanan ku dhahoweynay tiri laakiin waxay tiraahday waa ku faraxsanahay ay tiri inaad guursatid Titi wuxuu idhahayaa tiri markasta ninkaaga mustaqbalka wuxuu idhahayaa Titi haddaa timaadid gurigeena adigoo duqoodii isku kaadinaysid qol yariisan kugu xiri doonaa adi ma ka ogolaanaysaa maayay tiri assalatu minta nooy tiri ma ka ogolaan doonayay tiri warkaas habartay u tagtay macaysiis madaxa ii saarantahay gurigeenana waa gurigaaga ay leedahay sodohdeeday sidaas ku dhahaysaa ka waranay gabar caddaan oo reer galbeed sidaa ula hadasho sodohdeeda Soomaali maxaa idinka qaldan idinka wiilku waxaa leeyahay ka hadal hooyadaa wuxuu yiraahday hooyaday iyo aniga waxa naga dhaxeeyo wuxuu yiri wax qoraal ama ka hadal lagu soo koobi kara ma aha laakiin aniga wuxuu yiri waxaan ahay dadka tiimidaha ama xishood ka badan ma awoodi inaan qoro ama sheego waxyaabaha oo hooyaday iyo aniga naga dhaxeeyo oo wanaag hooyaday aan jeclahay iyadana ay jecel waaye aniga waxaan leeyahay yiri aadan waa ogow yiri dabeecadeyda dhibkeeda iyo adeegeeda laakiin waxaa jirta yiri waxbaa jiro yiri waxaasoo ohoo yiri inaa aniga aan jeclaho yiri saaxiibaday iyo sodohday iyo sodogay iyo hooyaashay iyo Titiba inaan aad u jeclahay oon dhibna u geysan doonin waa la wada sacbiyey dabeecadeyda iska adkaato yiri laakiin ana dadkaan jeclahay waa aqaana waa weydiisoo macmacsiiyey hadda waxaa la aadayaa famil Moroccan gabar ah iyo wiil Talyaani ah oo programkan ayagana qaybkee labadan mar way isguursan rabaan noloshooda runta waa waxaan ma aha wax dheedheel ah Nawaal gabadhan la dhahaa waa Moroccan ninkan waa Talyaani Dimitria la dhahaa qofkii hadlaaya hadda haddii kale ma hadli kartiin marka la isguursado kadib waalidiinta la hadlaaya maamada oo dhashay wiilka Dimitria la dhahaa waa Sicilian Talyaani oo jalaatada samayso shaqadeeda ay tahay way hadlaysaa aniga Nawaal aan ku la hadlaayay tiri marka hore diyaar ma ogoleynay tiri shakiya igu jiray ma ahanay tiri inaad tahay ajnabi
laakiin waxaa le waayay tiri waxaan rabay inaan ogaado inaan run isku jeceshiin adi iyo wiilkayga haddaan run laysku jeclaan oo lays guursado guurkaas waxba matarayay tiri sansa amoore ciyo u dhammaanahay tiri marka waxaan diidayay tiri in guurka ay ku ciyaartiin marka waxay tiri ani adiga ogtahay tiri labadeena dhexdeena adina 22 oo November dhalatay ana 22 November dhashay maalin isku mid bil isku mid waxaan kaliya inaan hadalna ma ay tiri ani adina isfiirina nagu filanay tiri waa isfahmeena way qosji gabadhina waxay tiri aadan ugu faraxsanaa gabar qurux badan waa tahay wiilkayga la hadlay tiri ani wiliga waxa iyada wiilkayga yaroon macmacsiistoon haystoon adiga maalina waxa ay tiraahday tiri hooyo aniga waxaan ahay wiil weyn 33 sano jira inaan guursadaan rabaa oo meel dego aniga ma ahayn tiri inaan diidayay tiri inaan ahay soo jaray inaan noqdo sodo magacaas inaan nacay ma aha inaan gabadha nacayna ma aha laakiin wiilkayga weynaaday ciyoobana sikidiisa oo guursanay waxaasan diidaa leega wadanayaan ka masiiray laakiin marka ay tiri ani 33 sano jira hooyo cunug dambe ma iyo nin weynaan noqdo inaan reer dhisaan rabaa bloga isku dhijiyay kadibna waxaan ogaaday inaad 33 sano jirtid juusta waayay tiri inaad guursatid oo family aad samaysatid oo waana idinku faraxsanahay labadiinaba waxaan ku sheegay wax yar marmar dhif ama ima kartiin qado iyo casho si ay ila cuntiin gabadha waxay tiri waa gurigeena waa isku imaanayna waana isla cunteen doona habartan waxay tiri aad u maadsantahay gabadheedii marka waxay tiri waxyaabihii xumaay war xunow lagu waa camal wax ay dhahday marka waxay tiri waan ku faraxsanahay adaana i tustay tiri inaan ku jeclaado gabadha waxay leedahay adaa i bartay inaan ku jeclaado macnaha daacadnimadaada markaan arkay waa mahadsantahay tiri abartay macmacay soo siisay sodohdeed iyadana way soo noqotay gabadha nawaa la dhahayo hooyadeed oo wiilka sodohdiisa ah haddana loo dhiibay mikrofoonka oo ku faraxsanahay uu yiri in waalidkiisaas dhaheen Dimitri markastaba waxa igu soo noqon jiray yiri war laakiin maanta wuxuu yiri ma sha Allah waa la kala jaray yiri gaal ma sha Allah ma yaqaani laakiin wuxuu yiri waa la kala jaray warkii hadii kadib la isku ma qabsanayo yiri waa lagu wada faraxsan waa la wada sacbiin naweel hooyadeed hadlaysan naweel hooyadeed melada al dhahabartan iyadana iskool macallimad ka tahay waxay rabtaa inay gabadheedan u hambaleyso inay hadasho laakiin luqadda ma taqaanid carabi waa la fasiruha laakiin aad isii sheegay salaamu calaykum idri habeen wanaagsan farxadan gabadheeda u rajeynayaa waan ku faraxsanahay gabadheedii guurkaaga oo Dimitri aad guursanaysid adna waxaan ku rajeynaa inaad farxad intaas la eg aad heshid waan idin wada jeclahay labadiinaba حتى waxay tiri waxaan ahay wax shoonaya ay tiri way hadli weysay waxay tiraahday farxadan gabadheeda aan ku faraxsanahay gabadheeda guurkeeda waxay tiri wiilka ay guursanaysa xataa hadduusan Moroccan ahayn ay tiri Talyaani yahay waa ku faraxsanahay lustees isku mid si kasta waa ku faraxsanahay hadduu Moroccan ahayn xataa aniga waan ku faraxsanahay tiri Dimitri asoo Talyaanigiisa asna waa qoslay waa noqon doonaa uu yiri Moroccan aan noqon doonaa Dimitri la hadlaay tiri magaciisa ma karta Dimerio ee dhoweysa lagu qoslay waxay tiri waxaan ku leeyahay adna aw guuri waan ku faraxsanahay inaad gabadheeda guursatid gabadha iyo dhaqaalay ilaahay ha idin amaansado waxaan rajeynaa inaan nagu rigaaleysin ilmo ah ayay u ahay adduunkana aad wanaag ku dhamaysatiin marka waa xishoonaya hay tiri maadli kar intaas ka badan waa mahadsantaha la dhahay gabadhii waxay baxday hooyadeeda macmac soo siisay wiilkina wuu baxay sodohdiisa oo macmac soo siiyey kadibna wuxuu yiri aniga ninka adduunka ugu nasiibka badan ah barkee ma fahmayo yiri sodohday waxay sheegayso waa lagu wada qosl warkeeda ma kasay sodohday marka ninka adduunka ugu nasiibka badan ah yiri aada loo wada qosqoslay kadib dumaashida Soomaalida idan wax ka sheegan dumaashida nawaal dumaashideed aadna hadlayso oo Dimitri la dhalatay
maclimad daanso waaye daansada maclimada oo barto baalarinayaasha daansada alis ilmahaygan salaamaa guriga joogay tiri macaan siiyey tiri iyo gabaraan habreer u ahay kadib Dimitri rabaa inaan la hadlo waana xishoonaya tiri waa ujeedaa huu yiri ani adi waxay tiri sanado badanaa noo dhexay 8 sanaan kaa weynahay marka waxaan ahaa jiri inaan qofka alla tashato marka inaad baxdid xataa labiskaaga xataa anaa igala tashay jirtay markasta iyo imaan jirtay sanado badanna waxay tiri waa iga go'day tiri markii dambe waxba ima weydiinayn waan faraxsanahay waxaan fahmay inaad heshay qof kaleeto oo ku kalsoon tahay oo inta u tagtid dhihi kartid sidee ahay oo la tashan kartid mana kama siirin waaba ku farxaybo laakiin caawa marka oo programkan bilaabanaya war aa dhahdaa aan ka xanaaqay ka xumaaday waxaad dhahday inaan annaka aan diidayna nawaal maadaama ay Marookiin tahay adiga waad og tahay annaka inaan adduunka oo dhan kusoo wareegi jirno waalidkeen anagoo la soconno waalidkeen waxayna bareen inaan rasbeeteyno qof kasta oo bini aadanka kala duwan inaysan xumaan ku kala duwaneen ee siman yihiin qof kastana dhaqan iyo hiddo ee leedahay gaar ah xumaatina aysan ahayn marka ma aha inaad dhahdid Marookiin ay diidayaan laakiin adiga waxa igu imaan weysay waxaan ba fahmay hadda inaad isdhehaysid gabadhaan ay nacayaan oo naceebkaas daraaddeed iga go'day aniga waxaan hadlaa nawaalay tiri marka hore ma isfahmi jirin adiga maadaama aadan luqadda aqoonin markaan xanaaqo ilmahayga ku qaylinayaan dhaho maxaan ku hadlaa carabiya waa xanaaqi jirtay waxaa umalay jirta inaan carabta caynayo laakiin markii dambe oo biyaan aan luqadii fahantay waa isfahanay markaan hadalnay oo wax kastaba aan isu cadeynay si fiican isu fahmay waxa waaye tiri in la hadlo ka fiicanay tiri waxa la hadal la'aanta nahayay tiri iswaraysi leedahay ba ay leedahay marka waxaan ku weydiinayaa hay leedahay hooyaday markay wiilkan walaalkay ee uurkiisa lahayd ani waxaan sugayo oo jeclaa in gabar la ii dhalo 9 bilood oo dhir badan aan sugayo kadib asaa dhashay tiri wiil qurux badan oo ahay laakiin gabadhii aan rabay oo walaashay eed ma noqon adima ii noqonaysaa walaasheeda aan sugayo hay tiri macmaciisiisay wayna isku wada farxeen dhammaantood walka waran sodoodii iyo dumaashidiiba sidaas u fiican yihiin marka waa arrin ku dayasho mudan Soomaalidana waxaan leeyahay programmadan oo kala sameeysta marka la isguursanayo sodoyaasha laga hadashiyo si ay u xishoodaan sodoyaasha xun inta badan waa fiican yihiin marka islaantaas waa wiilka eedadiis waxaa leeyahay kuurada noorad waxay ka sameysay bitarida ugu horeysay marka ciidan waa cid adduunka wareegaan cid diidayaan Marookiin iyo